bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan akhyaarta nala socota meel kasta oo aad joogtaan waa 27ka bisha September sanadka 2025 waa habeen sabti ah oo xadi soo galayso ku soo dhawaada barnaamijka qubanaha Barrow Show iyo caawa iyo faaqidaada wararka dunida qodobo waaweyn oo xiiso leh ayaan idinkugu hayaa barnaamijkan waxaana kamid ah dowladda Imaaraadka Carabta ayaa mas'uuliyiin sare oo ka tirsan waxa ay kulan xasaasi ah la qaateen nidaamka Israa'iil gaar ahaan ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu Carabta ayaa markan waxa ay la soo baxaysaa wajiyo kala duwan Imaaraadkuna waxa uu doonayaa Israa'iil in ugu yaraan uu ka dhaadhiciyo hindisiyaasha Carabtu ay wataan ee ku saabsan sidii xal looga gaari lahaa dhibaatooyinka gaalowsan magaalada go'doonsan ee Gaza iyo waliba Netanyahu inuu dib u laqo candhuuftiisa ku saabsan in uu laqo dhulka daanta galbeed ee wabiga Urdun oo Israa'iil ay ka soo horjeedo in laga unka dowlad Falastiiniyiintu ay leeyihiin Imaaraadka Carabtu waxa uu bilaabay waji u muuqanaya dalaalnimo diblomaasiyadeed mise waxa ka go'an fariinta dhabta ee Carabta inuu gacanta ka saaro ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu warbixin dhinacyo badan taabanaysa oo ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta waaweyn ee dunida ayaan idinla wadaagayaa akhyaartayna la socotay madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu si ba'an u weeraray ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxna uu tilmaamay in la gaaray waqtigii maxkamad la saari lahaa isaga iyo golahiisa wasiirada isagoo dhinaca kale ka hadlaya dhibaatooyinka ay ka geysanayaan magaalada go'doonsan ciidamada Israa'iil waxa uu yiri looma dul qaadan kara hadda xaaladda meesha ay taagan tahay dunida oo dhan haddii isku tagaan marnaba suuragal noqon mayso buu yiri in la aqoonsado dowlad Falastiiniyiintu leedahay oo dhisanta taa beddelkeedana waa in Israa'iil tallaabo degdeg ah laga qaado Erdogan ma ficil ayuu markan damacsan yahay inuu u bedelo siyaasaddiisa mise waxa ay ka dhigan tahay in wali nidaamkaasi Netanyahu uu hogaamiyo uu kaliya diblomaasiyadda iyo afka uu ku weerarayo warbixin ay qoray telefishinka TRT qaybtiisa afka Carabiga ee Turkiga ayaan barnaamijka idinkula wadaagi doonaa akhyaartayna la socotay dowladda Iiraan maanta waxay soo bandhigtay hubkii iyo gantaalihii ugu badnaa xilli tallaabooyinka Dahraan ashqaraar laga qaaday marka la fiiriyo tiknoolajiyada hubka ay gaareen iyo farsamada ay soo bandhigeen tani waa fariin ku socota dowladaha galbeedka iyo nidaamka Israa'iil ee bariga dhexe ku calan waleynaya marka la fiiriyo sida uu hadda u dhaqmayo warbixin dhinacyo badan taabanaysa ayaan sidoo kale arrintaasi idinku sheegi doonaa inta barnaamijka aan faaqidayo idalkiin baaqyaaray meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada Barrow Show tanaad shirka qaramada midoobay ee loo dhan yahay kaas oo ay ka qayb galeen madax ka socotay dunida inta ay ka kooban tahay qaramada midoobay ee 193 wadan gaaraya dowladda Imaaraadka oo arrimahaasi ka faa'iideysanaysa ayaa kulan la yeelatay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu wasiirka amuraha dibadda ee wasaaradda aaniraada dalka Imaaraadka ayaa kulan la qaatay Netanyahu waxaana la sheegay in la isla soo bandhigay qodobo ku aadan sidii loo soo gabagabayn lahaa colaadaha ka aloosan gobolka bariga dhexe gaar ahaan magaalada go'doonsan ee Gaza sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee dowladda Imaaraadka ee WAM la yiraahdo Sheikh Abdullah bin Zayed wasiirka amuraha dibadda ee isutaga Imaaraadka Carabta ayaa magaalada New York kulan kula yeeshay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu intii lagu guda jiray golfadhiga 8aad ee golaha guud ee qaramada midoobay sida ay baahisay wakaaladda wararka Imaaraadka ee WAM la yiraahdo labada mas'uul ayaa la sheegay inay ka wada hadleen xaaladda gobolka iyo waliba dadaalada caalamiga ah ee lagu xoojinayo dagaalada ka socda marinka Gaza Sheikh Abdullah bin Zayed ayaa ku baaqay in dowladda Imaaraadku ay hor dhigto buu yiri dhinacan Israa'iil dhowr qodob oo muhiim ah waxaana ka mid ahaa in degdeg loo joojiyo dagaalka xoogaysanaya ee ka taagan magaalada go'doonsan in la gaaro xabad joojin waarta oo aan muddo kooban lahayn in la ilaaliyo dadka rayidka iyo dhimashada ee halkaasi ka dhacaysa in gargaarka bini'aadanimo si joogto ah loo gaarsiiyo magaalada go'doonsan in la sii daayo maxaabiista gacanta uga jirta kooxaha hubaysan ee Falastiiniyiinta sida uu hadalkiisa u dhigay
laakiin imaaraadka carabtu waxa ay tallaabadan qaadayaan iyagoo si weyn Israa'iil uga soo horjeestay wixii ka dambeeyay markii ay weerartay gudaha magaalada Dooxa abartamihii bishan taas oo la soo wariyay in weerarkaasi uu ka dhashay khasaare xoog leh arrintaasi weerarka waxay dhalisay walaac la soo gudboonaaday dowladaha qaliijka iyadoo isku dayo la doonayo in ciidamo wada jira oo carbeed iyo kuwa dunida islaamka oo dhigma gaashaan buurta NATO la dhisana ay fashileen saddexdan dowladood ee imaaraadka qatar iyo waliba dalka sacuudiga kadib markii ay ka hor yimaadeen hindisaha soo jeedinta ah ee wadanka Masar ka yimid warbixintu waxay sidoo kale leedahay waxa uu taageeray imaaraadka in laba dowladood iyo nabad waarta oo gobolka bariga dhexe ka dhalata la gaarsiiyo dhankiisa Anwar Gargaash la taliyaha madaxweynaha imaaraadka ee arrimaha dibadda ayaa kulanka ku tilmaamay tallaabo geesinimo leh oo xoojinaysa dadaalada caalamiga ah ee lagu soo afjarayo colaadan waxaana uu ku tilmaamay dowladda imaaraadku inay qaaday tallaabo loo baahnaa oo ay ahayd Israa'iil runta qaraar in faraha laga saaro madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu si ba'an u dhaliilay oo la dhihi karo lahjad ka baxsan luuqadda diblomaasiyadda nidaamka Israa'iil Erdogan ayaa ku baaqay in maxkamad la soo taago ra'iisul wasaare Netanyahu iyo golahiisa wasiirada isagoo ku tilmaamay ra'iisul wasaaraha Israa'iil inuu yahay kawaanle ka ganacsada hilibka aadanaha sida uu hadalkiisa u dhigay madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku baaqay in arrinta Falastiin aysan dhammaystirmi doonin xitaa haddii la aqoonsado dowlad madax bannaan oo caalamku isku raaco ilaa iyo la joojinayo oo Israa'iil ra'iisul wasaaraheeda Benjamin Netanyahu iyo xukuumaddiisa gacmaha laga qabanayo oo la horgeyn doono buu yiri maxkamadda dambiyada si loogu qabto tacaddiga ay ka geysteen magaalada Go'doonsan Erdogan oo la hadlay shir madaxeedka diblomaasiyadda ayaa waxa ay ka dhacay baaliyay Istanbul ayaa carabka ku adkeeyay in aqoonsiga dhawaan dhowr dal oo reer galbeed ah ay u aqoonsadeen Falastiin uu yahay tallaabo muhiim ah balse uu yimid buu yiri goor dambe oo xeere iyo fandhaal ay kala dhaceen waxa uu isweydiiyay sababta aan loo difaaci karin Falastiin ka hor inta aanay ku dhiman baaliyay oo sidoo hadalkiisa u dhigayo 65,000 oo qof oo rayid ah madaxweynaha Turkiga ayaa ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha Israa'iil inuu ku kacayo tirtirid qowmiyadeed iyo waliba in uu u adeegsado gaajaysiinta sida hubka isagoo burburinaya guryaha shacabka xasuuqayana dadka rayidka sida uu hadalkiisa u sheegay waxa uu yiri muuqaalada carruurta gaajada u dhimanaysa waxa ay noqonayaan kuwa qalbi jaba mana aha xadda in la sii fiirsado 11 dal ayaa toddobaadkii ugu dambeeyay aqoonsaday dalka Falastiin taas oo ka dhigaysa wadarta dalka aqoonsaday 159 wadan ra'iisul wasaare Netanyahu ayaa khudbadii uu ka jeediyay qaramada midoobay waxaysan noqon mid helin dhageystayaal badan iyagoo guud ahaanba dadkii hoolka joogay ay isaga baxeen kadib markii loo arkay nin aan mudnayn hadaladiisa in la sii daawado madaxweynaha wadanka Turkiga ayaa bogaadiyay kooxaha caalamiga ee ku wajahan Gaza si ay u jabiyaan xanibaadda isagoo cambaareeyay waxa uu ugu yeeray argagaxinta dowladnimada Israa'iil oo ula jeedo in Israa'iil ay noqotay nidaam u taagan in uu caalamka ka sameeyo dhibaato walba oo qofka aadanaha dhibaysa sida uu qeexay waxa uu sidoo kale dhaliilay fashilka golaha ammaanka iyo nidaamka caalamiga ah ee hadda ka jira dunida ee qaramada midoobay inay u shaqeeyaan buu yiri hanaan u dhiganta mid naxuusa oo aan hadda ka shaqeyn karin wax hal buuxa inay gaareen Turkiga mar walba waxa uu garab taagnaan doonaa dadka dulman ma ha ahaadeen buu yiri Falastiin Syria ama meel kasta oo dunida kamid ah ayuu Erdogan ku celiyay baaqiisa ku aadan cadaaladda iyo nabad waarta oo laga hirgeliyo guud ahaanba gobolka madaxweynaha wadanka Turkiga waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha caalamka sida dheer uga dhawaaqa dagaaladaasi in la joojiyo ka taagan gobolka bariga dhexe xilli xiisada gobolka bariga dhexe u muuqata inay aad u sii kordhayso haddana dowladda Iiraan oo markasta filan karaysa in weerar lagu qaado ayaa maanta soo bandhigtay gantaalo cusub oo casri ah iyo diyaaradaha iswada ee aan duuliyaha lahayn
sida ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta dunida waxaa muuqanaya in dowladda Dahraan ay sameynayso tallaabooyin u eg u diyaargarow dagaal taas oo markasta qalqal ku ah nidaamka Israa'iil xilli isku soo dhawaashiyaha dowladaha waaweyn iyo imaaraadka qaarkood ee hadda u eg tahay inuu si weyn u sii karaar qaadanayo. sida uu qoray telefishinka Sky News Arabic magaalada caasimadda ah ee Dahraan ayaa maanta oo Sabti martigelisay bandhig weyn oo lagu soo bandhigayo hub culus oo ay ku jiraan gantaalo balastiga nidaamyada difaaca cirka iyo diyaaradaha aan duuliyo lahayn. bandhigan ayaa waxa uu qayb ka ah xuska sanadlaha ee loo yaqaan isbuuca difaaca muqaddaska kaas oo Iiraan ay ku xusto bilowga dagaalka ay kula jirtay Ciraaq sanadkii 1980 dagaalkaasi oo socday 8 sanadood kana tagay dhimasho dad kor u dhaafaya 1 milyan oo qof iyo burbur baaxad leh oo hantiyadeed. xilliga dagaalkaasi uu dhacay dowladda Ciraaq waxa hogaaminayay Saddam Hussein oo kamid ahaa ragga ugu magaca dheeraa dunida Carabta. munaasabadan ayaa ka dhacday fagaaraha loo yaqaan Baharistan ee ku dhow baarlamaanka dalka Iiraan halkaasi oo lagu soo bandhigay hub culus iyadoo sidoo kale lagu dhajiyay sawirka hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei iyo saraakiil ciidan oo dalka dartii u dhintay sida dowladda Iiraan ay sheegtay. sanadkan bandhiga waxaa lagu qabtay goob fagaara ah halka xukuumaddu ay ku baaqday qabanqaabada safarka ciidanka ee dhaqanka ku ah baa la yiri munaasabadan sabab la xiriira arrimo amni. sida muuqatay munaasabadan laguma soo bandhigin gaarka ciyaarka ciidamada iyo wadooyinka ay mari jireen hase ahaatee taa beddelkeeda waxaa la soo bandhigay oo kaliya hubkan waxaana arrintan uu ku sheegay golaha sare ee amniga waddanka Iiraan in looga gol leeyahay xaqiijinta nabadgelyada iyo sugidda siraha ciidanka. xuska ayaa mar kale lagu xasuusinayay qorshaha culus ee ka dhashay dagaalkii Ciraaq iyo Iiraan 1980 ilaa 88 ee qarnigii tagay kaas oo weli raadkiisa uu muuqdo iyadoo kumanaan miinooyin dhulka lagu aasay xilligaasi ay weli qatar ku yihiin baa la yiri shacabka labada wadan ee hadda qatarta dareemaya. dhinaca kale dowladda Iiraan ayaa fariinta hubkan waxa ay ka dhigan tahay in Israa'iil ay ku leedahay weli quwadda dowladani looma babacdhigi karo. akhyaartana la socota ay tabinta qaybtan